بسم الله الرحمن الرحيم. عياريهنك إدريس ma ku saxan yahay talaabada uu qaaday. sidoo kale ciyaaryahanka Idris bandhigay ma sax baa mase waa khalad. Idris in maanta heerkan lala gaaro ma wax uu asaga isku keenay baa mase waa wax lagu qasbay. dhammaan waxaan kaga hadli doonaa barnaamijkeena inta uu socdo. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا الكسو دبو كانالك سعودال بلشو برنامج كني هديه كو عجبيه لايك شير يسبسكرايبكا وحقينا فكرك يغانا وإنو مهم إنو غريب كومنتيغا سياد إنو ديري جريسيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وحان عاور وإنا كارلو تويغا إدريس بريان قبصدي baraha bulshada kaasoo looga hadlaayay inuu ka maqnaaday cayaar lagu taageerayay dadyooga loo yaqaano qoomaluudka oo lagu sharfaayay inay qiimo leeyihiin qoomaluudka kaas oo asagana ka soo horjeeday inuu ka qayb galo cayaar lagu qiimeynayo ama lagu darajeynayo qoomaluudka. haddaba bulshada muslimka ama bulshada islaamka maxay u arkaan ama qaabkay bay u arkaan in Idris loo qabsado maxaad ugaga soo qaybgeli weeday cayaarta lagu taageerayo ama lagu qiimeynayo qoomaluudka. ahaan waxaan arrinkaas ka leeyahay walow labadan arrin ee isbarbar dhigayo ay kala weyn yihiin ama ay kala xun yihiin, haddana marka aynu dhinaca kale ka eegno awalan Idris arrinkan ama barnaamijkan waa mid uu asaga isku keenay. wuxuu ilaabay aayadda Allah subxaanahu wa ta'aala ay dhahaysa walan tardaa canka alyahuuda wala nasaara xataa tattabica millatahum. waxa uu ka qayb galay cayaarahooda, waxa uu la saaxiibay ayaga, wuxuu wax la wadaagay ayaga. haddaba yahuud iyo nasaare ee aad la saaxiibtay ama aad ehel ka dhigatay ma waxaad ka filaysaa wanaag iyo sharaf iyo ixtiraam miyaad ka filay? waa maya. qodobka labaad, maxaa farqi weyn oo u dhaxeeya calaamadda ku taala madaxiisa iyo calaamadda lagu muujiyey lambarada fanaanadda? maxaa farqi oo u dhaxeeya? barnaamijyadeena haddii uu ku cajabiyey laag sheero iyo sabskraibka hanaga ilaabin si aad inoo dhiiri gelisid fikirkaagana waa inoo muhiim ee noogu reeb kommentiga.